شغلنا عقلته ما بنا شغل عقد مهمة دتك أول شيء هناك شغلتان مش علينا اللي يقول لي شقة الشغل سير لو قبتها لكن مركز لبسكان يشوفوا دتك الصومالية سكلي وفسرنا يعني يقانا معهن لكن وحوا لابتن ديزاينر لها هذه حفلت مع لقصة وقب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلهانتي ملك سودونكا كتوتان سود دوادا مر لبادي مقال عصب مر لبادي ولالك وردادن حتى أنا عصب تاي أو تامر كوباد أنا سومرتدو وحن قاعصنا هذا يوتيوب كاس سبسكرايب نصارته سوكل مقال كعلى كريسو وشير كريسو لو ذاك تاسحبت هذا فكر يعرفتي وحياة كقبته مقال كان سوكل هي أضحكوا نقول ذاكتو حاجة كومنتيجا aad mahadsantiin aad mahadsantiin guri gobonimo muddo Soomaaliya meel kasta adduunka ka joogtaan waxaan soo taagi doonaa sida cuman kor raacad ka soo aragteen laba dhalinyaro oo aalada miidiyaha aad u qabsaday saacadii la soo dhaafay ama laba dicishee la soo dhaafay okay waxaan doonayaa inaan labada dhalinyarada ah bal wixii xoogeen ka hayo wixii dadku ay u qaadaa dhigayaan iyo sababta markaasi lagu tilmaamayo waxaan wanaagsanay maxay tahay wastul taagi doona haygahe fududaana waxaan doonayaa bal marka koobaad ninka la yiraahdo qoqaaga qaranka waa nin dhalinyarada waa nin Soomaaliyeed waa nin in fara badan miidiyaha ku jira dadyo fara badan ay ku xiran yihiin ninka kale Ashraf la yiraahdo sidoo kale waa nin dhalinyar fara badan iyo dad fara badan ay bartiisa TikTok ay ku xiran yihiin oo followers u yihiin labadooduba hadii la soo geeyo 3 milyan ku dhawaad taqriiban oo dad ayaa ku xiran haddaba Soomaalidu waxay tiraahdaa balo hadii aan adigu doonan kuma wada timaadaba qof kasta balo haduu lugiisa ku doonto wuu helayaa waqtiga koobaad labada nin dhalinyarada sawirada halkan idin ka muuqda oo ay lahaayeen model ama waxbaan xayeysiinayna ama fashion baan ka qayb galayna ama runtii waxaanu adduunweynaha u bandhigayna qaabka ay Soomaalidu u labisato waxa weeyaan waxaan wanaagsaneyn bay horta dhaqankii Soomaalida ka gudbiyeen adduunyaduna maanta way nagu maadeysanaysaa oo way ina dacaayideynayaan waxay leeyihiin wadadkii Soomaalida ahaa aynu ku naqaanay dad dhaqankooda ku adag dad diintooda ku adag waa maxay systemkan iyo qaabkan ay maanta miidiyaha ugu jiraan maxay tahay way dadku ina leeyihiin adduunweynaha waxaanu qayb ka nahay dalalka islaamka boqolkiiba boqol lagu tiriyo hadaynu Soomaali nahay guud ahaan meel kasta aynu joogno dadka Soomaali wax lagu tiriyaa dadka boqolkiiba boqol islaam ah oo Allah subhanahu diinta islaamka haysta dhaqankoodana waxa weeyaan sida caanka lagu yaqaano macawiis iyo sidoo kale go iyo shaal lagu yaqaano Allah musta'aan dhar aad u waaweyn oo qurux badan inuu dhaqan noocaasiya waynu leenahay laakiin dhaqanka noocan shaqo iyo shaqurtoona kuma leeyin bal haddaba waxaan isdul taagi doonaa laba fiidiyoo koobaad waxa weeyaan ninka la yiraahdo Ashraf wuxuu ka hadlayaa fiidiyoogan ama muuqaalkan wuxuu ka hadlayaa in Soomaalidu ay khalad u fahmeen hadda dhageysta in Soomaalidu khalad u fahmeen dharka ay xiran yihiin ama ay kaga qayb galeen waxa ay kaga qayb galeen xafladda waxa la yiraahdaa fashion East African malaynaya in ahay East Africa geeska Africa dadka ku nool qaaradda haday Kenya haday tahay Uganda haday tahay Ethiopia haday Soomaaliya tahay aduu dhamaan Zambia Tanzania aduu waxa soo dhan dadkaas fashion loo qabtay dadka san waxay soo bandhigay waxay dhaqan u leeyihiin oo iyagu ay dadka kaga duwan yihiin hadda meesha waxa looga invite gareeyay war wixii aad dhaqan u leedahay aad xirato kaga soo qayb gal meesha waxa uu cadeeyay in Soomaaliya isugu matalay sidoo kale wuxuu cadeeyay dadka Soomaaliyeed inay khalad fahmeen dharka uu isugu xiran yahay hada way Soomaaliyeed Soomaaliya wax isweydiinta badan ay runtii in la soo sheega qurxada dad Soomaaliyeed dadkan matalaysan oo Soomaali waxay Soomaalidu fahmi weyday ay wax kala u qaateen wax Soomaaliyeed matalaysay bise wax dad shisheeyad adigu markaasi oo aan Soomaali ahayn badadka u bandhigtay maadaama magaciisa Soomaali meesha ku joogto waxay Soomaali aanay fahmeyn ay xidhaan maxaabad meesha u la tagtay hadii aan adigu rabin in hadalka soo noqdo simple oo bay taasba fiidiyoogiisa la taabado
labiskan usually dadka Soomaalida si kale u fasirinayaan wixii yaqaanaan ma ahan laakiin waxa waa alaabtan designer laha adiga xaflad ma laga soo qayb galay mid gaala laga soo qayb galay gaal adiga sheegba ma fahanteen sawir oo salaama meeqo labiska wallahi lacagtiisa inuu baagada waxaa ka soo gaday Zara iskale sida shirkad Zara iskale kan iyo kan way iswataan waxaa ka gaday Louis Umriyo ka gaday kabaha iyo asaga gaday oo kaalan Louis Vuitton waay ya full of it barfunka iyo masana waxa waay tarafa iyo masana hay muuqaalkana meel leer gaarsiyo u sheeg meel leer gaarsiya waan salaamina meeshni weyn baa soo galay wada ninka kale la yiraahdo maxayga qaranka bal waxaan doonayaa video lagu weydiiyay maadaama nin dhalinyarada yahay yaa ku maalgeliya waxaan dhaqaalaad ku bixinayso safaradan kala duwan dalalkan kala gedisaneed runtii yaa tagayso dhaqaalaha xaqad ka hesha waa ninka Ridwan Isaaq la yiraahdo uu weydiiyay waxa uu yiri waxaan la shaqeeyaa hay'ad magaceeda lagu waa secret waa wax qarsoon anigu waxaan ka sheeganaya ma waa wax wafkiisa ka yiri ila daawada shaqna caqabata ما بنا shaqo lacag badan weeyme dadka u sheegnay ka shaqeystaan ma jecleen lagu celiyo shaqadayda shaqada si loo qabtaa laakiin marka sigti waan ugu aragnaa anaga hay'ad la shaqeeya hay'ad yes oo inaad ogaato muhiim ah hay'ad shaqo looma qabto ama hadda kula joogan shaqayn karaya shaqo ma jirtaad ya shaqo ma jirtaad okay wadniya akhir sabab adigoo nin rag ah ilaahay sharaf iyo karaamo ku siiyay xiniyo buur dhalaya in lagu waxanto ay dadku maanta ku murmaan hebel waa la cunaa iyo lama cunaa in dadku dhexdeeda maanta ay ku murmaan waa ceeb inteeda leeg wallahi run marka laga hadlo oo wax aad u foolxun waa aad u foolxun madaxa iwinaada aniga iyo waxba hadalin ku daalin waxa weeyaan dhalinyaradaas Soomaalida ku xiran ee billioniska ka badan baa horta xumeeyay dadka ku wada xiran ee flowriska u ah ayaa ku dhiirigeliyay waxay doonaan inay soo gudbiyaan iyaguna u saabtumay komitiyada ugu qoray qod qurux badan ee soo horumar wacan baan ku rajaynayaa wallahi waa farid dad komitiyadooda ka soo macbuudka ayaa ku keenay dad Soomaaliyeed baa amaanaya marka inaga runtii dadkeena Soomaaliyeed baa dhaqanku ka halaaday dadkeena Soomaaliyeed baan ahayn dadkii hore sharafta iyo milgaha lahaa dadka runta u sheega ayaan ku jirin labada qof ee runta u sheegay waxaan kuma fiicnay waxaan aad wada jooji kuma baa lagu daaday iyagu uma jawaabeen dadka kale jawaabay horumarkiisa ka xuntay noloshiisa ka xuntay hayaay oo waxyaalahan arkay weeye ee sida saxda ah markaa in adiga sheekeen anyway waxa cadeysteen labada ninba in meel kale laga biiliyo oo dadyo kale ay u shaqeeyaan hay'ado organization ay ku shaqeysanayaan magac ay leeyihiin kaga shaqeysanayaan dadkana ay wax fool xun u gudbiyaan shalay waxa markuu sawirkan markuu soo galay ee dadku lahaayeen hayaay waa sidan oo waxa weeyaan horumar wacan buu rajaynayaa aad baan ugu xumaa in Soomaalidu ay noqonay dad dhaqankooda iyo diintooda meel uga dhaca sharafta ay lahaayeen iyo qiyamka ay lahaayeen iyo Allah musta'aanay magaca adduunka ay ku lahaayeen iyo sumcadda iyo karaamada dad maanta gacmahooda ku burburiyay inaynu noqono inaga markaas sabab ah maadaama hadaynu dadkan aynan flowers siin lahayn oo aanay yani ku xunaan lahayn meelahay wax soo dhigdhigaan waxaan la dhanay sameeyay sharaf leh oo karaamo leh oo waxay noqonayaan hagaagsan magaceedna kor u qaada adduunyahana wax nagu soo koriyay laakiin maanta maxay nagu soo koriyay adduunka in la dadka Soomaalidu waxa ay yihiin qayb ka yihiin dadka aan wanaagsaneyn ee khada aad iyo aad baan ugu xumaa subxaanallahi alcadiim walaad baan salaamay guriga gubnimo walaalka wartaana YouTube ka subscribe saar sidoo kale video like gareeya share gareeya loodaga asxaabtina mawduuca ay mawduuciin ku kulano iyo walaalka wartaana idin nool kulantay